suxufiga caburuntiisa samafalaha ciilkiisa Cabdimaalik xarigiisa firi Cabdimaalik in badan baynu lahayn cid kasta oo ka hadashay ama taageertay in la soo daayo samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii 2022 samafale Cabdimaalik waa la sii daayay qof kasta oo doonaya in la sii daayo commentiga ku soo qora alxamdulillah sida markii horeba firi aynu soo wada qoraynay iminkana aynu alxamdulillah ilaahay baa mahadlayno soo wada qoro Cabdimaalik waa la soo daayay maxkamaduna aad bay u mahadsan tahay maadaama wax dambi Cabdimaalik oo lagu helay aan jirin firi Cabdimaalik alxamdulillah ka dambaysay mar haddaynu in badan free soo qoray gacmihii free ka baran qaadimka free soo qorayaan arkaya gacmihii free ka baranin alxamdulillah soo wada qora 3 bisha 2022 waxaan halkan idinku yeedhnay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka Maroodijeex waxay soo saartay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahayd saaka maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay dacwadaasi oo muddo soo socotay Cabdimaalik waxa la xilay bishii 8aad ee 2021 dacwadaasi ilaa maalinta soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xorriyadiisa soo celisay runtii go'aankaasi waa go'aan cadaaladeed وقوانا نسود وينه وقوانا نبدأ كدر سجيناي قف كستو دعوة Cabdimaalik دنيني هنا ساكو حلوش جنا محكمة واحد صارت حكم عدالة وحنا كل وقت الدم بيدي لو هيستي إن لجواي Cabdimaalik Muuse Coldoon waxa lagu soo eedeeyay 5 eedood 5 eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 110 heerka habka ciqaabta way ku guul daraysteen inay maxkamadda horteeda ka cadeeyaan inuu Cabdimaalik galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamadda way horkeeni kari waayeen runtii dhinacayaga waxyaabihi ay isu keeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiliibkii u dambeeyay oo Cabdimaalik Muuse Coldoon kaga hadlay warbaahinta ee ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaasi Cabdimaalik wax dambiye muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa yaani tigitaan mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdimaalik sheegayay abaarso ama dadku ku tuhmayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aan ahayn waxay tusoo taabsiye ahayd waxyaabo macnawiya waxaan clipkaas Cabdimaalik madaxweynaha ka codsanay hadii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga helo in baaris dheeri iyo guddi baarisada culimo ku jirto uun la diro taasina wax dambiye ma aha waa codsi uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka annaguna taasi waxaanu cadeynaynahay dambi hayn wax fal dambiyada kale Cabdimaalik aanu gelin waxa ku daraya maragyadii xafiiska xeelaantu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamadda horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu cadeynay doorka hore wixii maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraallo ka kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen dhammaan intaas bay ahaayeen dacwadii hore Cabdimaalik intii la sii daayay kadib in aanu qoraalada mar noocaas aanu ku qorin dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimka boggiisa ku qoraya taasi aanu ma naqaano Cabdimaalik hadda uu xiran yahay cid ku qoraysaana ma hadda dacwadan cid xiriir la leh marka xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan dacwadaas ku guuleysanay maxkamadduna ay saaka amartay in xorriyadiisa dib loogu celiyo waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigay qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraantu markii bay raacfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay raacfaan qaateen isla markaana xorriyadiisa aanu wali wada helin Cabdimaalik ee uu sii xiran yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraalintu caadeystay in qofkii markaa raacfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaaraynaa waxaanu leenahay siduu sharcigu dhigayo ummadda Soomaaliland sharciga inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay ee la nabadda hal la ilaaliyo waxa uu aasaasa
cadaaladda haddii aan cadaaladi jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaan mar labaad ku baaqaynaa cabdimaalig inuu xorriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay